السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عالمك waxaa ku nool dad gaaray 7 bilyan oo qof kuwaasoo Allah u abuuray si kala duwan. Hadaba muuqaalkan waxaan kuugu soo gudbinaynaa shakhsiyaad ka duwan dadyowga dunida. Yushan Huan waxa uu dhashay dalka China. Jirkiisa badankiisa waxa ku daharan timo aad u badan. Ninkan ayaa sheegay inuu dareemayo dhibaato culus oo ka haysata dhanka shacabka uu la nool yahay, taasoo ah inay ku qoslaan ama ku maadeystaan iyagoo la yaaban qaabka uu egyahay muuqaalkiisa. Yushan Huan waxa ku dhacay cudur dhifa ama naadira kaasoo ku dhaca dad yar dadka dunida ku nool. Cudurkaasi ayaa lagu magacaabaa hypertrichosis, kaasoo keenay inay jirka ka soo baxaan timo badan kuwaasoo u koraya si dhaqso ah. Kan waxa lagu magacaabaa Jeff Deeb. Ninkan waxa uu u dhashay dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Ninkan waxa uu galay safaro badan si uu uga qayb qaato tartanka musaaracada gacanta. Ninkan wareegga gacantiisa waxa ay gaaraysaa 49 sentimitir. Jeff Deeb ayaa ah mid sidan ku dhashay, wax dhibaatana aysan haysan, muuqaalkiisana uu ku noqday mid caan ka ah dunida oo dhan oo la wada yaqaan. Mohammed Kaleem waa cunug yar oo u dhashay dalka Hindiya ee gobolka Jharkhand. waxa uuna leeyahay gacmo ka waaweyn jirkiisa. Mohammed Kaleem waxa asiibay cudur lagu magacaabo giantism oo sababa koritaanka gacmaha. Wiilkan ayaa ka dhashay qoys sabool ah oo Muslim ah. Waxa uu Mohammed sii wadan waayo waxbarashadiisii. Macallimiinta iskoolka ayaa ka soo cayriyay iskoolka iyagoo u sababeynaya inuu carruurta marka ay arkaan ka cabsadaan wiilkan, waxayna waalidkiis ku yiraahdeen iskool kale u raadiya. Wiilkan ayaa waxa dib weyn ku haya cunitaanka cuntada iyo xirashada dharka. Doctor lagu magacaabo Raja Sabati ayaa rajo geliyay qoyska Mohammed isagoo ku yiri wax waa laga qaban karaa. Dr. Raja ayaa qaliin waxa uu ku sameeyay hal gacan, iyadoo uu sheegay haddii gacanta kale qaliin lagu sameeyo inay dhimasho sababi karto. Kan waxa lagu magacaabaa John Nakisfe. John waxa uu leeyahay waji u eg qaab kale oo ka duwan dadka. Wiilkan yaraantiisii waxa tuuray waalidkiisa, waxaana soo korsaday qoys qani ah. Wiilkan ayaa markii uu dhashay waxa ku dhacay cudur dhif ah kaasoo lagu magacaabo Treacher Collins syndrome. Waxa uuna ku dhacaa lafaha wajiga, wuxuuna keenaa in lafa ka mid ah wajiga ay ka maqnaadaan wajiga. Dhaqaatiirta ayaa markii uu yaraa sheegay inuusan waxbana maqli doonin, hadlina doonin, laakiin John midnaba kuma dhicin intaas oo dhaqaatiirta warkoodii waxa uu noqday mid waxba kama jiraan. John waxa uu isku dayay inuu samaysto asxaab, laakiin waa ay u suurageli weyday sababtoo ah muuqaalkiisa ayaa ka duwan dadka kale. Laakiin John taasi waxay u keentay inuu murugoodo. Muddo badan ka bacdi John wuxuu noqday mid isku kalsoon, waxa uuna bilaabay jirdhis. Akharkiisii waxa uu noqday macallin jirdhis, sidoo kalena waxa uu yeeshay lamaane. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe saar, taabana gambaleelka si uu kugu soo dhaco muuqaalada aan soo dhigay.